markii 2 sannadood oo dhammu dhammaatay ayuu Fircoon riyooday oo wuxuu is-arkay isagoo webiga ag taagan oo baleeg waxaa webigii ka soo baxay 7 sac oo quruxsan oo cayilan oo waxay daaqeen cawskii dareemada ahaa Markaasaa waxaa dabadood webigii ka soo baxay 7 sac oo kale oo fool xun oo weyd ahaa oo waxay is-ag taageen sicihii kale oo webiga qarkiisa jooga Markaasaa sicihii foosha xumaa oo weyda ahaa waxay cuneen 7 sac oo qurxoonay oo cayilnayd Kolkaasuu Fircoon toosay markaasuu haddana seexday oo mar labaad riyooday oo wuxuu arkay 7 sabuul oo buurbuuran oo wanaagsan oo ka soo baxay isku jirid oo baleeg waxaa haddana ka soo daba baxay 7 sabuul oo xunxun oo ay dabayshii bari qallajisay Markaasaa sabuuladii xunxumaa waxay liqeen 7 sabuul oo buurbuurnayd oo eltirnayd Markaasuu Fircoon toosay oo wuxuu arkay inay riyo tahay oo subaxdiina wuu dhibaataysnaa kolkaasuu u cediray oo uu u wada yeeray saaxiriintii Masar oo dhan iyo nimankii xigmadda lahaa oo dhan Markaasaa Fircoon u sheegay riyadiisii laakiin ma jirin mid Fircoon u fasiri kara Markaasaa waxaa Fircoon la hadlay kii madaxa u ahaa kuwa qamriga siin jiray isaga oo wuxuu ku yidhi maantaan xusuustay dembiyadaydii Fircoonow adigoo u cadhaysnaa addoommadaada waxaad igu xabistay guriga madaxa waardiyayaasha oo waxaannu ahayn aniga iyo kii madaxa u ahaa kuwii wax dubi jiray oo markaasaannu isku habeen riyoonnay aniga iyo isagiiba waxaannu ku riyoonnay midkayo kastaba sidii riyadiisii fasirkeedu ahaa oo halkaasna waxaa nala joogay nin dhallinyaro ah oo cibraani ah oo madaxa waardiyayaasha addoon u ahaa markaasaannu isagii u sheegnay oo isna wuu noo fasiray riyooyinkayagii nin kastana sidii riyadiisu ahayd wuu ugu fasiray oo sidii uu noogu fasiray ayay noqotay anaga waxaa laygu soo celiyey meeshaydii isagiina waa la deldelay dabadeedna Fircoon waa u cediray oo u yeedhay Yuusuf markaasay dhaqso uga soo bixiyeen godxabsigii kolkaasuu xiirtay oo dharkiisii beddeshay oo uu u soo galay Fircoon markaasaa Fircoon wuxuu Yuusuf ku yidhi riyaan ku riyooday mana jiro mid fasiri karaa oo waxaan maqlay in markii aad riyo maqashid aad fasiri kartid Yuusufna Fircoon wuu u jawaabay oo ku yidhi taasoo xaggayga ma aha laakiinse Ilaah wuxuu Fircoon siin doonaa jawaab nabadeed markaasaa Fircoon Yuusuf la hadlay oo yidhi waxaan riyadaydii ku arkay anigoo webiga qarkiisa taagan oo baleeg waxaa webigii ka soo baxay 7 sac oo buurbuuran oo quruxsan oo waxay daaqeen cawskii dareemada ahaa oo waxaa haddana ka soo daba baxay 7 sac oo kale oo taag daran oo fool xun oo weyd ah weligay dhulka Masar oo dhan kuma aan arag kuwa sidooda u xun markaasaa sicihii weyda ahaa oo foosha xumaa waxay cuneen 7 sac oo hore oo markay cuneen lagama garan karin inay cuneen laakiinse waxay u fool xumaayeen sidii markii hore markaasaan toosay oo waxaan kaloo riyadaydii ku arkay 7 sabuul oo eltiran oo wanaagsan oo ka soo baxay isku jirid dabadeedna waxaa ka soo daba baxay 7 sabuul oo engegan oo xunxun oo dabayshii bari qallajisay markaasaa sabuuladii xunxumaa waxay liqeen 7 sabuul oo wanaagsanayd markaasaan u sheegay saaxiriinta laakiinse ma uu jirin mid ii sheegi karay oo Yuusuf wuxuu ku yidhi Fircoon riyadaadu waa mid oo waxa Ilaah samaynayo ayuu kuu sheegay Fircoonow 7 sac oo wanaagsanu waa 7 sannadood 7 sabuul oo wanaagsanuna waa 7 sannadood riyadu waa mid 7 sac oo weyd ah oo foosha xun oo ka soo daba baxay waa 7 sannadood oo haddana 7
sabuul oo madhan oo dabayshii bari qallajisay waxay noqon doonaan 7 sannadood oo abaar ah. taas waa wixii aan kugula hadlay Fircoonow. waxa Ilaah samaynayo ayuu ku tusay oo bal eeg, waxaa dalka Masar oo dhan imanaya 7 sannadood oo barwaaqo ah, oo dabadoodna waxaa dhici doona 7 sannadood oo abaar ah, oo barwaaqadii oo dhanna waa laga iloobi doonaa dalka Masar. markaasay abaartu dhulka dhammayn doontaa, barwaaqadana dhulka laguma ogaan doono abaartaas ka dambaysa aawadeed, waayo waxay noqon doontaa mid aad u xun. oo taas aawadeed riyadii labanlaab bay kuu noqotay Fircoonow, maxaa yeelay waxaas waxaa amray Ilaah, oo weliba Ilaah dhowaan buu samayn doonaa. haddaba Fircoonow, waxaa doontaa nin caqli iyo xigmad leh oo u sarraysii dalka Masar oo dhan. tan yeel oo waxaad doorataa niman dalka u sarreeya oo waxa 7 sannadood oo barwaaqada ah dhulka ka baxa inta shanaad ha ururiyeen, oo cuntada oo dhan sannadahan wanaagsan oo imanaya ha ururiyeen. hadhuudhkana ha kugu hoos kaydiyeen Fircoonow, oo intay cunto ahaan magaalooyinka u dhigaan ha ilaaliyeen. cuntaduna kayd bay dalka u noqon doontaa 7 sannadood oo abaarta ah oo ka dhaci doonta dalka Masar, si aan dalku abaarta ugu baabi'in.